waxaan isleeyahay uun xubnaha inaga maqan hadda uu wasiir Saalax magacaabay ismalihii waxay ku maqan yihiin dhibaato iyo xumaan meeshu bay la martayo nin reer burcaho xaaji cali loo oran jiray waa jiray iska mahmaayo xumahay xaaji cali inda dooru ka iibsada raashinka markuu inda dooru raashinka ka iibsado hawd geeyaayo gadbadii uu 200 ku siistay buu 100 ku siiyaa haddaba 100 arigu soo iibsadaayo arigu soo siistaa 200 kun dabeedna markuu burco keenaa buu 100 ku siiyaa dabeedna waa la sheego wax lagu yiri ninkan xaaji cali ee magaalada jooga saasi wuxuu kala iibiyaa dabeedna waxaan ku yiri war xaaji calo inaad run baa inaad halkan saas samayso mise ku maxad faa'iido ila xagana tagtaa xag walba wadu carartaa waxna ma faa'iid markaas inaad xarakadan uga jeeda xarakada horta nimankan aynu moodaynaa inay mucaaradad iyo dagaal iyo ku maqan yihiin xarakada nin weyn oo ragga darajooyinkii dalka ugu sareeyay soo qabtay oo leenoo suuqa joogan guddi sameynaya miyana xarako u ahayn waxaan leeyahay dawladuhu waxay sharciga u samaystaan in wada la maro haddii dawladnimadu sharci weydana fawdadii aynu soo marnay baa dhici karta qof raba dunidan inay fawda dhacdo oo dawladnimada Soomaaliyeed xariiq gaadhaana ma jirto waxaan uga digayaa fawdada